waxaan rabaa sheekh inaan ku weydiiyo su'aal ah beriyahan waxaa internetka iyo facebooka dhex socdo gabdho ama dhalinyaro dumar u badan oo leh maxay hayday maaragtay ninkan aniga guursado gabadha maxay hayday maaragtay ninkan aniga guursado hooyadii sodohday aniga wiilka hooyadii gabadha dhashay maxaa wiilka dhashay hooyadii wiilka dhashay waxa weeyo ma imaan karta gurigayga ama haddii ay imaanayso waa in maxaan ku rahdaa ilaahay kuma cadaabee uu aniga iiga fasax qaado ama aniga ogolaashiya layga helo oo haddii kale ma imaan karta gurigayga taa beddelkeeda aniga hooyaday xilliga ay doonto iyo waqtiga ay doonto iyo inta ay doonto ayay gurigayga joogi kartaa ay ku noolaan kartaa sheekh arrintaa diinta maxay ka qabtaa ninka raggaasi maxaa u furan jidka u furan ee uu arrintaa kaga samayn karo maxay waxaad ogaataana go-aanada qaarkood diinta waxay u dhaaftay qofka wiilkay u dhaaftay wiilkaasa xaqaas iska leh haddii hooyadiis lagu xadgudbo inuu ka celiyo islaanta haddii hooyadiis xadgudubtana inuu hooyadiis celiyo laakiin si akhlaaq ah oo waana ah inuu u celiyo ayaa asalka ah laakiin dhaqanka aan soomaaliyasa aragna hadda gabadha dhehayso aniga ninka aabihiis hooyadiis ma iimaan karto beri hooya naqanaysa ugu gabadheeda waa la gursa doonaa kama tadiinu tudaan waa meerta wey berin idan saasa loo soo raacdayna laftigeeda dhaqanka haddaa la bedelay marka annaga waxaan u baahan nahay dhaqanka islaamka uu ogol yahay waa in lagu dhaqmaa oo ah ixtiraam inuu ka dhexeeyo waalidkan gabadhan wiilkan hooyadiis intaas sanay soo korisay caloolay kusoo siday adiga asagoo weyna aragtay waxaa lagaa doonayaa marka hooyadiis inaa aad u ixtiraamtay ku shukrisay ilahi subxana watacaala hooyadii nin saanoo kale kuusoo korisay marka hore kuu keentay inaad ilaah ugu macaysa man laa yashkur الnaas laa yashkur ilah sidoo kale gabadha hooyada waxaa laga doonayaa wiilkeeda gurigeeda been wey waxaa dadka iska dhacdhaciyeen u ah gabadha sodoqda guriga wiilkeeda duminaysa wax dhahay ma jira hooyay doonaysa cunugeeda ama wiil ha ahaada ama gabar ha ahaada laga guursaday gurigiisna u dumi rabta ma jirto laakiin shaydaanka iskugu waxyooday naga waxaan dhaqan u badan ninkaaga qalad oo leeyahay waxaa saaraysaa hooyadiis walaa tasiru waasiratu wisra ukhra gafka ninkaa kaa gala asaa qaadayo laakiin hooyadiisa usoo sheegtay hooyadiisa ka dambaysa daa tiraahdo ilaahay hooyadiis kula xisaabtamaysa qiyaamaha marka sidoo kale islaantiisi ayaa gaf gashay wuxuu leeyahy islaanta hooyadeeda xun iyada waa fiican tahay ma jirta iyada waa qaladka labada qof isla jooga ayaa eedda qaadayo annaga waxaan naqaana eedda in loo saarayo walidaalika dhaqan ay naga naqatay in gabadha ama inay la safato oo wiilkeeda ee jeceyl u qabto cidkay gooyin karta ma laha jeceylkaaga adiga jeceylka waalidkaa ka weyn xaaska u qabdo waxaa ka weyn kan waalidka u qabo walidalika culamadu waxay isku hayaan gabadha hadduu waalidkeeda wiilka hadduu waalidkiisa gabadhan fur ma furaa mase ma furaayo imaam axmed aa la weydiye waxaa la yidhi gabadhuu dembi gelin ninka hooyadiis day ku tiraa gabadhan fur ma furaa culimadaas ku khilaafsan yihin imaam axmed wuxuu yidhi hadduu wax kasta ku adeeci jiray oo hooyadiis wax kasta waa tanna ku adeeci ha fur gabadha heerkaasaa la gaaray marka gabdhahaas hooyooyinka wiilasha dhaleen iyo isku taagin bal ha isjeclaysiiyaan hooyadeed oo kale wey hooyadaasna waxaa la rabaa inay diinta dabado qof inay dulmiso laa inay qof ajnabi iska dhaafi kan oo wiilkeeda qabay inay dulmiso diinta ma ogolo nacam